بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta dalka la soo fariisto ka hadlayo waxa weeye waraysigii uu bixiyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalidu in aan wax ka sheego sidoo ahaana aan dadka ugu iclaamiyo wixii khaldanaa. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalidu wuxuu sheegay in saddexda tuulo oo kala horeysay tuulo ma ahayn saddex magaalo waaweyn bay ahaayeen oo ganacsi oo wax kasta oo hanti weyn ay dhex taalle saddexda magaalo in si sharci darro ah loogu daray dowladda deegaanka Cafarta ayuu sheegay ayna ka howlgaleen. أنا waxaan ogahay in aan House of Federation-ka aan ku laalaabanay warqada aan geynay noo sheegay in dowladda deegaanka Soomaalidu aynan ka howlgelin oo wixii saddexda magaalo lagu qaatay ay ahayd sharci darro. hadday dowladda deegaanku ay codsato hanana kala saar ay tiraahdana in sharciga Ethiopia u yaala lagu kala saari doono. taas horta inta baan shacabka u sheegayaa. waa midda labaad in isaga isburinaya kol markuu leeyahay saddexda magaalo waxay ahaayeen wax sharci darro halka lagu geliyay. haddana uu leeyahay annagu saddexda magaalo ciidankayagu ma tagi karayn mana tagi karo in markaa deed maadaama ay tagi karin sharci baa meesha yaallo oo waxay ka tirsan yihiin Cafar. maadaama Cafartu ay maamushay Cafar ka tirsan yihiin kolkaa deed annagu ciidankayagu ma tagi karno. wuxuu iloobay 4 sanaba in wax maamul Cafara iyo maamul kalaba iyo wixii hore loo sameeyay ay meesha ka jirin dadkuna ay ka halgamayeen dhulkana ay dhibaato iyo dagaal ay ka socdeen. taana wuu iloobay. xilligaa waxaan xasuusinaynaa inuu kolkuu hadlayo waa nin weyne uu hadalladiisa miisaamo. waxaan kaloo xasuusinaynaa in tii u dambaysay cundufo ahayd oo shalay toola ahayd ciidankiisu ay dhex fadhiyeen dadkana waxa barakiciyay ciidankiisay ahayd wixii barakiciyay. isagaana amray ciidanka inay ummadda meesha joogto barakiciyaan oo laga yaaco dhulka. isaga ahayd waxay ka timiday marka kolna dadka markuu u sheegay uu leeyahay halkaa khalad weyn baa ka dhacay ciidanka tacaddi bay sameeyeen. marka dambana uu leeyahay iminkana ciidankaygu dhulkaaba ma tagi karaan wayba joogeen iyagoo joogaaba dadka laga saaray. midda kale uunan ka hadal waxa weeyaan xasuuqii cadaytu ka dhacay dee ciidankiisu kama dheerayn way gurman karayeen ma tegin dee kamana jawaabin. xasuuq baa ka dhacayna mooda. xasuuqii weynaa ee ka dhacay Garbaciisana dee ereyadiisa madaxweynuhu kolla ma soo hadal qaadin. xasuuq baa ka dhacay saddexda magaalo Garbaciisa 500 dad ka badan baa ku dhintay. dee waxay ahayd in uu ugu yaraan yidhaahdo halkaa dad baa lagu xasuuqay. dee wuxuunan u odhanayn markii ay arrintu ay qoyonaydba wuu diiday inuu tacsiyadeeyo dadka oo ma tacsiyadeen dadkii halkaa lagu laayay 500 ee lagu laayay ma tacsiyadeen. xilligaas Soomaalidu inay sidaa wax uga kaan doonaynaa. midda kale markii Garbaciisa la leynayay ciidankiisu 4 kiiloomitir bay joogeen. shacabkii halkaa wax iska ridayay way soo qeyliyeen oo waxay yiraahdeen war gurmad noo soo dir. waa laga diiday. isagaa ka diiday oo yiri
gurmad ma tagi karo looma gurman karo dadka looma gurman karo xilligaa walaalayaal ninkaasi miyuunan cadow ahayn dadka iyaga la xasuuqay miyuunan isagu uu mas'uuliyadeeda lahayn miyuunan isagu ka mid ahayn waa arrin lala yaabo waxaa oo dhan mid ka daran baa jirta dal la helay dowlad deegaankay ka tirsanayd ciidamadii soo jooga waa kii iyadana halkaa dadka lagu laayay lagu xasuuqay laga soo barakacay midda aan maanta anugu walaalaha iyo Soomaaliyeed xasuusinaya waxa weeyaan markii abaarta weyn halkan ay nahaysay ay dhibaatadu socotay miyiga ay dhibaatadaas haysatay reer miyigii agagaarkaas galbeedka city umuunan samaynin wax la yidhaaho gargaar uu iska indhatiray dadkaa waxaa ku socday dagaalna wuu ku socday abaarna way haysay col iyo abaar baa isku hayay labadiiba jawaab uma bixin waa maantadan aan joogno waxaan ka hadlay waxaa la soo galay dowlad deegaankii Soomaalida gudaheegii ayaa la soo galay iyadoo dowlad deegaanka Soomaalida gudaheegii la soo galay maanta ninkaasi gurmad ma sameyn umana diyaar aha inuu sameeyo madana la soo galay qaraf baa la soo galay IDD baa la soo galay dhul kale oo ka ballaaran baa la soo galay ilaa iyo meelo waaweyn ayaa la soo galay oo ka tirsan doonyar marka waxa weeye in meeshan ninkan walaalkaya waxyaabaha kale ee fajaca in dadka xasuusinayna waxa weeye maalintii garbaciisa la xasuuqay dabadeed wuxuu yidhi haddee tool annagu liiw booliiskeegu dhiman maayaan ciidan iyaan nii samayn ciidan baan nii samayn ciidankeena birqod baa la geeyey ciidankii waa la soo tababaray markay soo tababarteenna ciidankii reeraha dhibaatadu ka dhacday ka tirsanaa bay ahaayeen wuxuu yidhi kala erya wuu kala diray ciidankii bal cadaawadda intaa leegeeg bal ciidankaas dadkani hadday haysan lahaayeen waxbay iskaga difaaci lahaayeen markaa cadaawadda intaa leeg uu ummaddan u hayo waan garan weyne midda imikadan taalla waxa weeyaan laba degmo ayuu magacaabay labadii degmuu magacaabay baajadna male gaadiid male waxba male ciidan male waxa allaaliya waxay hayaanna ma jiro inabad yaraa way la dhibaatoonayaan bishaaro yaro ingeegsan baa meelaha gobolka looga soo qaadaa loo soo tuuraa waxa weeye war ummadani cadaawadda intaa leegadu hayso maxay walaalow kugu samaysay war maxaa lagugu sameeyo war ma awoogaabaan kaa dilnay ma adeerkaabaan dilnay ummadani maxay kugu samaysay wallaahi alcadiim waa wax laga yaabo waxa cadaawadda intaa leeg kuu geeyey inaad ummaddan baabiiso maxay tahay midda ka daran waxa weeye imika waxaa la sheegayaa gobol baa jira gobolkaa la sheegayo hanti ma taallo hadday howlgalaan shidaal ma haystaan waxba ma haystaan dadka iyay xagxagtaan ay yidhaahdaan shidaalna siiya waxna siiya dadkoogaa wax ka bixiya oo wax siiya bal ma waxaad aragtay dowlad deegaan gobol dhan oo maad aragtay aanan waxba haysan oo shidaal la iska bixin karin raashin baa yaallaa la yidhi halkan raashinkii baa la yidhi dee war bal dadkii aad soo barakicisay ee aad ka soo barakicisay miyigaa shishe ee maanta dhibaatadu haysato maaha kuwii magaalooyinkaba waxa laga hadlay warba raashina loo qaado raashinkii loo qaadayey maxaa lagu qaaday baabuurra waad keeni weyday waxay noqotay in baabuurta dariiqa socdo xoog lagu soo weecicsado marka xoog lagu soo weecsadana ceebta meesha taalla
لو يحتاج شدال لوغو شبو oo bal dadka wax lagu gaarsiiyo anugu ma garanayo hay'adiina RRC-guna waxay ka shaqeyso xibta inta leegay taala xilligan anugu waxaan ka hadlayo iskama hadlayo waa fact and figure baan hayaa wixii aan bixinaan ognahay wixii aan sameynaan ognahay imikadan waxaan ku gargaaraynaan ognahay xilliga waxa weeyaan walaalow cadaawada inta leegu gobolkan kugu sameeyay maxay tahay dhalinyartan meesha joogta iyo degmooyinkani way dhibaataysan yihiin umaad soo shubin miisaaniyada ay ku hawlgalaan ay wax ku qaban karaan gobolku waxba ma haysto oo lacagtii adaa ka haysta ciidanka meelaha jooga ee ku dhibaataysan iyaguna leh war mishaar nama soo gaadhin 3 bilood mishaar ma arag inta waxa ma arag warniyahow ciidankaad soo dirtana maxaad mishaaradii uun andana u soo gaarsiin weyday cadaawada inta leeg maxay tahay xitaa ma ciidamadaadii aad soo dirtaan andana mishaarana ka soo daba direen warniyahow waxa weeyaan wax lala yaabo weeyaan qofka hadduu wax ku fashilmo wuu iskaga tagaa meesha galbeedka sitiga adiga ka hor taaka dhula lagama qaadan adiga ka hor taaka dhula lagama qaadan adiguna taaka lagama qaadayaad sheegay 100,000 oo kilometer kaare iyo dadkii laga soo kiciyay adeerow waad fashilantay aranu waxaan kugu soo gabagabayn inta wax ka badan oo meesha ka sii qaban kartaa ma jirtay ariska casin oo iskaga tag salaamu calaykum